gabadhu waxay qorshaysay inay fursadda u isticmaasho in ay daaha ka rogto sirta burka hilibka laakiin intaanay ficil qaadin hooyadeed ayaa sakhraamisay kadib hooyadeed waxay bilowday inay sasabato ninka dhalinyarada ah waxayna u kaxaysay jikada markii ay gabadhu kacday waxay ogaatay in labadooduba ay meesha ka maqan yihiin isla markii ay ka soo baxday qolkeeda waxay maqashay cod hilib jarjaris ah oo ka imaanaya jikada waxay ku dhawaayeen inay albaabka furto si ay u eegto hooyadeed ayaa si lama filaan ah gadaal uga soo wacday iyadoo ku canaananaysa inaanay saaxiibkeed guriga keenin oo ay ka mamnuucayso inay gasho jikada gabadhu waxay aaminsanayd in saaxiibkeeda uu ku jiro gudaha jikada markaas ayay magaciisa si cod weyn ah ugu dhawaaqday hooyadeed ayaa afka qabatay iyadoo leh saaxiibkeed wuu tegay gurigiisa gabadhu ma rumaysan waxayna u dirtay fariin ay ku weydiiso wuxuuna ugu jawaabay inuu dhab ahaantii gurigiisa aaday hase yeeshee dhawaaqa hilib jarjariska ah ayaa ka sii socday jikada gabadhu waxay la yaabanayd cidda ku jirta gudaha laakiin farxadda gabadheeda darteed hooyadeed waxay si buuxda uga diiday inay gasho waxayna uga digtay in ay jiraan cawaaqib aan la dayactiri karin oo ka dhalan kara iyada oo ka faa'iidaysanaysa xilli ay hooyadeed feejignaan lahayn ayay gabadhu si degdeg ah u oroday oo ay albaabka jikada furtay waxaa soo baxday in ay ahayd saaxiibta ugu dhow ee hooyadeed oo hilib ku jarjaraysa jikada gabadhu way eegtay hareeraheeda waxna ma aysan arag wax aan caadi ahayn iyadoo u malaysay inay si qaldan u fahamtay hooyadeed isla markii ay ku dhawaayeen inay fadhiistaan si ay wax u cunaan ayaa gabadhii si lama filaan ah u aragtay kabo dhulka yaala kabahaas waxay ahaayeen kuwii saaxiibkeeda uu xirnaa markaas ayay hooyadeed weydiisay sababta kabaha saaxiibkeeda ay halkaas ugu jiraan channel ku cusub tahayna saaxiib subscribe saar